رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وموضوع نياها أنا وهذا ليني الطاقات الشبابية أوودها dhalinyarada مقدمة هران soo sameynay intii daawatay وحلقتي أما فدقي كوواad maanta waxaan uga hadlayaa xalaqadan waxyaabaha muujin kara awoodaha qofka dhalinyarada saddex qodob ayuu mowduuceegu ka koobnaan doonaa hadii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu idmo qodobka koowaad waxa weeye awoodaha dadka dhalinyarada waxa muujin kara oo banaanka u soo saari kara qofka dhalinyarada ah inuu garanayo kaalinta uu bulshada ku leeyahay أحباب الكرام waxa xaqiiqo ah qofka dhalinyarada ah hadaanu isagu isfaham sanayn oo awoodaha uu leeyahay iyo kaalinta uu ku leeyahay nolosha bulshada hadaanu garanaynin awoodiisa dhalinyaranimo way dayacmaysaa daaqadkii iyo tabartii dhalinyaranimo ka buuxdana waxay noqonaysaa muhaddar waxa laga faa'iideysan ayay noqonaysaa waxay yiraahdaan culimadu dadka guuleysta tilmaamo badan oo ay ka siman yihiin baa jira tilmaamaha waxa kamid ah waxa dadka guuleysta waa dadkii yaqaanay kaalinta ay nolosha ku lahaayeen waa dadka sawir sax ah ka haysta kaalinta ay nolosha ku leeyihiin miisaankeeda iyo fiqalkeeda iyo culeyskeedu inta uu dhan yahay waa dadka leh baa la yiraahdaa aqliyad ay ku sawiran karaan dariiqii ay ku gudan lahaayeen kaalinta nololeed ee u sawiran inay nolosha bulshadooda inay ku leeyihiin waxa xaqiiqo ah inaga dhalinyarada ah inaanu leenahay kaalimo iyo adwaar iyo yani roles kala duwan inaanu nolosha bulshadeena ku leenahay waxaan kaalin ku leenahay oo mas'uuliyad naga saaran tahay horumarinta bulshada waxaan kaalin ku leenahay oo mas'uuliyad naga saaran tahay hogaaminta mujtamaca iyo bulshada waxaan kaalin ku leenahay mas'uuliyad naga saaran tahay cilmi baarista iyo wax ku soo darista aqoonta bulshadani ay haysato waxa mas'uuliyad naga saaran tahay kaalin ku leenahay sidii loo dhisi lahaa xirfadaha micnaha u leh nolosha bulshadeena ee ay ka faa'iideysan karaan jiilasha inaga naga dambeeyay dabadeen soo socdaay waxaan kaalin ku leenahay oo mas'uuliyad naga saaran tahay horumarinta dhaqaale ee mujtamaceena waxay mas'uuliyad naga saaran tahay oo kaalin ku leenahay horumarinta military iyo difaaca dhulkeena iyo diinteena iyo ummadeena waxay mas'uuliyad naga saaran tahay oo aanu kaalin ku leenahay xormaadka iyo mawaarida iyo dhulka ay ummadeenu leedahay sidii loo difaaci lahaa waxaan kaalin ku leenahay oo mas'uuliyad naga saaran tahay ka hortagga waxyaabaha mujtamaceena mushkilada ku ah ama ha noqdaan waxyaabo fikri ah ama ha noqdaan waxyaabo maadi ah midkay doonaan ha noqdaan waxaan kaalin ku leenahay mas'uuliyad naga saaran tahay in aan ka qayb qaadano xalinta khilaafaadka iyo isqabqabsiyada daaqilka ummadeena ka jira waxaan kaalin ku leenahay oo ay mas'uuliyad naga saaran tahay in aan wax ka dajino istiraatiijiyada aayaha ummadeena lagu sawirayo waxa soo kaalima iyo in badan oo aan soo koobi karin ayaanu nolosha bulshadeena ku leenahay marka aan garanayno dowrkeena iyo kaalinta aan nolosha bulshadeena ku leenahay awoodaheena dhalinyaro banaanka ay u soo bixi karaan mujtamaceena iyo bulshadeena waan uga faa'iideyn karnaa
qodobka labaad awoodaha dhalinyaranimada soo saari kara oo soo muujin kara waxa weeye dadka dhalinyarada ah inay ku beeran tahay ruux iyo dareen ah dadaal baa laga rabaa juhdi baa laga rabaa sababo adigu inaad la timaado laga rabo oo kaalintaada ku gudan karto ayaa jiray adiga la imow markuu dareenkaasi jiro oo aynan wax walba oo dhaca iyo gaabis kasto yimaada iyo ceeb kasto nolosheena ku timaada aynaan qadarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynan u tiirinaynin ee ay nagu beeran tahay dareen ah idinka leedinka rabay talaabo qaad talaabadii baad qaadi kari weyseen natiijadana waa idinka mas'uulka ah wax leedinka rabo oo aad kaalinta noloshiina ku gudan kartaan baa jira marka dareenka noocaasi uu nagu beeran yahay awoodahana dhalinyaranimo banaanka ay soo bixi karaan ahbaabi fillah dad badan oo dhalinyaro ah oo aniguba ku jiro waxa naga dayacan sababihiina la ka rabay inaguna la nimaadno ayaa gaabis naga jira sida awadeed wax badan oo salbiyaad ah oo aan wanaagsanayn oo natiijo nolosheena aan u fiicnayn ahayn ayaanu haynaa oo ka dhashtay gaabiskiina waanu ka gaabinay sababihii la rabay inaan anagu la nimaadno kadxigii iyo kadigii iyo dadaalkii iyo juhdigii iyo fikirkiina la ka rabay inaga inuu naga yimaado ayaa naga iman kari waayay sida awadeed baan waxaan la noolnahay mashaakil fara badan oo nolosheena haysta waysan sax ahayn aan raano Ilaahay baa noo qadaray way xagga Rabbi bay ka qadarnayd inaan raano oo kaliya inaan anagu mas'uuliyadkeeda qaadano oo raano waas baan la ka rabay ka gaabinay cilmi baaris baan la ka rabay ka gaabinay fikir baan la ka rabay inaga fikirin halabuur bay hadaan keeno inaga keeni kari weyn inaanu mas'uuliyadkeeda inaanu qaadano markaanu ka gaabino mas'uuliyadkeena qayb kamid ah waa inaanu qaadanaa nataa'ijta ka dhalanaysa gaabiskeena mas'uuliyaddeeda waa inaanu saarnaa waxa la yiraahdaa culimadu yiraahdaan qofku inuu sameeyo tasarrufaad khaldan iyo talaabooyin aysan sax ahayn inuu qaado waa fashil wixii laga rabay inuu sameeyo inuu ka gaabiyana waa fashil laakiin waxa la yiraahdaa labada arimood ba waxa ka sii fashil xun nataa'ijta adiga tasarrufkaaga xun ka dhalatay ama adiga gaabiskii aad sameysay ka dhalatay inaad cid kale u tiiriso waxa la yiraahdaa waa fashalka ugu daran ee ruuxda qofka dhalinyarada ku dhaca ee dowrkii iyo kaalintii iyo awoodii uu bulshada ku dhax lahaa inay soo baxday banaanka timaado hor istaagi karta waxaan rabnaa inaanu qaadno dareenka ah dadaal xumida naga iimaanaysa fikir xumida naga iimaanaysa iyo talaabooyinka khaldan oo anagu aanu qaadayno waa inaynan qadarta ku eedaynin ee aan anagu mas'uuliyaddeeda aanu qaadanaa waayo markaanu mas'uuliyadaas aanu qaadano oo anagu aan dareemayno waxaan ka gaabinay iyo waxaan khaladnay inay jiraan inaanu isaxno ayaa noo suurta gali karta mar walba ceebaha adu aad leedahay inaad cid kale u saariso waxa la isku waafaqsan yahay inay kamid tahay tilmaamaha dadka nolosha ku fashilmaa ay iska leeyihiin xaqiiqada kale raba inaan idin la wadaago waxa weeye nolosha inay wax noo soo baxaan oo aanu guulo gaarno it's a proportional waa wax ku xiran hadba inta aan anagu juhdi sameeyno intaanu dadaal sameeyno intaan kaalintiina la ka rabay inagu hadba intaan ka soo baxno ayay ku xiran tahay macnaheedu markaanu waajibaadkeennii iyo kaalinteennii iyo dadaalladeennii iyo asbaabtiina la ka rabay qaybo kamida markaanu inagu ka gaabino guulihii aanu gaari lahayn qaybo kamidana inay lumaan waxa weeye hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan لذلك أيها إلهي سبحانه وتعالى وحنا تلماميا markaanu adduunyada joogno natiijada nololeed iyo heerka aanu liibaanta ka gaarayno inay ku xiran tahay dadaalka iyo juhdiga aanu inagu sameynayno kaas barab subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna sa'yakum la shatta sida silamida maadaama sa'yigeena iyo dadaalkeena iyo juhdigeena waxaan dunida intaan joogno aan qabanayna ay kala duwan yihiin aakhira markaanu tagnana jazaageena iyo abaalmarintaanu ilaahay ka helaynaahay iyana way kala duwanaanaysaa wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala aayad kale oo laysa lil insani illa ma sa'a qofka bini aadamka uma soo baxayo oo ma helayo sa'yigiisii iyo wixii uu qabtay natiijadii ka dhalatay mooyee wax kale wa anna sa'yahu sawfa yura wuxuu soo qabtay dadaalkiisii iyo kadxigiisii iyo juhdigiisii wixii ka soo baxay ayuunbu maxay ayuunbu arki doonaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay imaru fa sayara Allahu amalakum warshaqa qabta waxaad qabateen barab subhanahu wa ta'ala arki doonaa iyagoon boona Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku qiimeyn doonaa waxaanan aysan sax ahayn inaanu filanno
in badan inaanu jiifano oo aanu in badan gaabis samayno oo in badan waajibaadkiina la ka rabay aanu ka gaabino haddana inay wax fiican inoo soo baxaan guulo badan inaanu gaarno isma keenayso oo waxa weeye qaacidada iyo sunnada nolosha looga bartay bay kamid maaha xaqiiqada saddexaad ee rabaan inay la wadaaga waxa weeye annagu waxaanu nahay dad muslimiina waxaanu nahay dad mukallafiin hore subhanahu wa ta'ala u xisaabinaya xidhamadu ka hadlaan inaga waxaana la ku xisaabinayo aakhirana la ku xisaabtamaya ma maqaadirta rabbi subhanahu wa ta'ala qadarta rabbi uu jaangooyay nagu dhacaysaba mise waa asbaabta iyo waxayna waan la iimaanayna hal isku waafaqsan yahay inaanu nahay mukallafuun bil asbaab dad mukallafiin ku ah asbaabta iyo waxa iyaga ka iimaanaya waxaanu sameynay ficil qalloocana ama toosana waxaanu ka gaabinay ee ay ahayd inaanu qabanno inta un baan anagu mukallafiin ku nahay nala weydiimaayo قندرت الربي قندرت الربي سبحانه وتعالى وحنا مسؤولية هذا قاعدنا أسبابه أنو لن نمد أنتي توصنادي أنتي قلعنا ديو وحي نلود دري أنو كجابني قدرت وانو الرميسنا هاي حنو قرنا هاي وحول بون نرشة إن كل عاهي إن حق الربي إنه قرناين لكن وحنا قدرنا وحنا قابني مسؤولية هذا إن نقولنا الله سبحانه وتعالى إنه سمرك هربا وقدرين قف ملحن فردية إنه نرشة كقوليستو الله سبحانه وتعالى إنه سن يعني وقدرين إنه فشل موقف ددال بدن أو توسنام بدن أو طريق رب سبحانه وتعالى وتلاقي كتوسن وحويه إنه نرشة كفشل مو وقدر لك كل مرة سبحانه وتعالى مقدرين إن الله ليس بظلام للعبيد إله سبحانه وتعالى دومدي سام ما ظلميه أنت إيه جابس كيما قلع كيما دانا فشل بكحكميهن أنت يجو توسنام يددال كي جهدي لجرب يقبصها هنا وحويه جوشة يا رب سبحانه وتعالى وقدره أخيرا قضب كاوحن كوجا بن جبينيا أوده النرد لينيرنمو وحبادان بينو سامحيان وأسبابتنا لكربينا لن نماضو أوده النرد لينيرنمو وحب كفلان تهاي إن لن نماضنا سببه أقونها نكو هرمر الهين أوده النرد لينيرنمو وحينو سامحيسا إن لن نماضنا سببه أنو كو هرمر الهين دقالهان برشدنا وحينو سامحيسا أودينا dhalinyarannimo inaanu la nimaadno military ahaan inaanu horumarno oo aanu helno cudud military oo caqiidadeena iyo diinteena iyo ummadeena iyo xurumaadkeena iyo dhulalkeena aanu ku difaacan karno waxaynu saamaxaysaa awoodaheena dhalinyarannimo haddaan inagu ka shaqaysiino inaanu xalino khilaafaadka iyo mashaakilka bulshadeena inaanu tirtirno ضعفiga daaqiliga ah inaga nahaysta inaanu muqaawamayno oo ka hortagno يعني هجردامدا حق عدوة إنه جاي مانيسا وحصل أنا لكن وحب بانتاي إنه كشقيسينه أوله هنا وأنو آمنه ونقادنا الروح ذي يدرين كيها نحن مكلفون بالاتيان بالأسباب وحنكون كلفنا هنا لن نمادنا أسبابنا لا كربنا لن نمادنا سين رشينا دنك جوشة يقول هذا قبل كده هذا مجنكرة أودا لنا يرني ماذا وحويه إن أي كبد بادان يعني إن كبد قبان لأن يردوا درين كذي الروح ده مشاعرته إن كبد قبته كعاف مال قبان فذا يو عذرك اللي يرادو الذاتية دنجارة وني كفكران يا أحبابي في الله لأن يرفر بدن أو ومضى أن كتر سنة أنت يقول عربية دنجارة دنتي جود بدنتي markay dantii guuduntana ma dhici karto inay dan qof shakhsiya hal qof dantiisa inay taagnaato oo hal qof dantii ay hirgasho ma dhici karto waxaan u baahanahay inaanu qaadano dareenka ah inaanu ka shaqeyno danaha caamka u ah ummadeena iyo mujtamaceena iyo bulshadeena si anaga danaheena shakhsiga ay u hirgalaan oo ay u meel maraan waxba soo saari kara awoodaheena dhalinyarannimo ayayna kamid tahay inuu nugu jiro dareenka ah danta caamka ka shaqay dantaada gaarka ah ku hirgasheen dantaada gaarka ah waxay ku xiran tahay danaha guud ee mujtamacaaga masaalixda guud ee bulshadaada oo xafidanta inay nagu beeran tahay dareenka ah inaan dan caam ka shaqeynaa inaan khatar ku ahayn danaheena shakhsiga inay nagu jirto dareenka ah danteena gaarka inaan marnaba taagnaan karin hadii danaha caamka ay baabaan waxaan rabaa inaan mulaaxadeeyo awoodaheena dhalinyarannimo way noo saamaxayaan inaanu kulmino maxay inaan isu keenno inaan noqono dad shaqaysta oo danahooda iyo biilasha reerahooda subaxii u kalaha haddana
كشقية يعني أرميه عام كها أو مدودة markii loo baahdo inay askar noqdaan oo ay difaacaan diintooda iyo akhlaaqdooda iyo yaani hantidooda iyo dhulkooda iyo ummadnimadooda inaanu difaaci karno marka isma diidayso inaanu danaheena shakhsiga u shaqo tagno iyo inaanu maxay dhulkeena iyo aqeedadeena iyo diinteena inaanu askar u haano waxaan awoodeena dhalinyaranimo ay noo saamaxaysaa inaan waxna barano danaha shacabkeenana qayb ka mid ah inaan waqtigeena siino oo aan mujtamaca dana caama aan u xaqiijino awoodeena dhalinyaranimo way ku wada filan tahay awoodeena dhalinyaranimo waxay ku wada filan tahay in aanu yaani shaqaale noqono subaxii shaqo aadno haddana inaanu khidma wadaniya aanu ka shaqeyno oo dhulkeena ummadeena masaalix caam ah ay leeyihiin aanu saacada siino awoodeena dhalinyaranimo way ku filan tahay ceebtu marka waxay ka iman kartaa oo awoodeenu ay u qarsoomi kartaa ku baabi'i kartaa marka aad adigu aaminsan tahay bulsho waxba uma gashid dan caam kama shaqeyn kartid wadan waxba kaama gelin diin waxba kaama khuseeyo ee maxaa la yiraahdaa waxaad ku qasban tahay oo kaliya inaad dantaada caamka oo kaliya inaad daboolato arrimaha waxaan ku gunaanadayaa awoodeena dhalinyaranimo waxa soo saari kara in aanu mar walba yaani rumaysanahay in danaha caamka inaan ka shaqeyna ay muhiim tahay sida danaheena shakhsigaana aanu u daboordayno xalaqadan halkaas aan ku soo gabagabeynaya وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما